Salaan sare asxaabteyda, kusoo dhawaada muuqaal cusub. Caawa sheekadeennu waa dalka Masar. Waxaa dhacay 1950kii sheeko cajiib ah oo ka dhacday magaalo la yiraahdo Saciid oo ka mid ah dalka Masar. Gabar la yiraahdo Isra oo ku noolayd magaalada Saciid ama tuulada Saciid. Gabadhan ayaa waxay ahayd qisadeeda ninkii nolosheeda kusoo biira ama guur ka damca ama guursada ayaa wuxuuna u dhintaa sabab aan la ogeyn oyse ogeyn dadku. Haddaba maxay tahay sababta ama sirta ka dambaysa dhimashada raggii kusoo biiray nolosha Isra ama guursaday ama kaba damacsanaaba guurka? Isra waxay ahayd gabar yar oo 15 jir ah oo aad u qurux badan oo aadna looga jecel yahay tuulada ay degan tahay, waxaana dadku u yaqaaneen quruxleyda aamusan. Maalin maalmaha ka mid ah Isra waxaa soo doontay nin taajir ah ama maalqabeen oo aad looga jecel yahay qaryada Saciid. Isra aabaheed iyo hooyadeed aad bay ugu farxeen gabadhooda inuu soo doontay nin maalqabeen ah ama taajir ah. Isra hooyadeed ayadoo aad ugu faraxsan guurka gabadheeda ayay waxay u gashay qolka Isra waxayna ugu bishaaraysay in uu soo doontay nin aad u fiican 2 wiig kadibna uu dhici doono xalfadda arooskeeda. Isra arrintaasi ma soo dhaweynin kumana aysan farxin, laakiin waxay uga jawaabtay aamusnaan. Muddo yar kadib dadkii ayaa waxay isla dhex mareen tuulada in Isra la qasbayo oo aysan rabin guurka ama ay jiraan sababo badan oo diidaya inay guursato aysan la wadaagi karin ama aysan u sheegi karin hooyadeed iyo aabaheed. Warkii ay ku sheekaysanayeen reer tuulada ayaa waxaa maqlay waalidka Isra aabaheed iyo hooyadeed, waana la weydiiyey Isra ma waxaa jira wax kuu diidaya guurkan mise waxaa jira inaan anagu qasbayno? Isra muddo yar kadib waxaa la gaaray maalinkii xalfadda arooska oo la aqal geyn lahaa Isra. Mushkiladu iyo dhibtuba hadday bilaabatay. Isra habeenkii gurigeeda ayaa si qurux badan loo galbiyo loo geeyay. Waxaa dhacday ninkii markii gabadhii guriga loo geeyay in uu ninku markuu is dhaho gabadhii u dhawowba wuxuuba arkayaa cabsi iyo baqdin uu ka dareemay. Ninkii oo gabadhii sidaa uga baqaya oo indhaheeda markuu saa u fiiriyaba ruucbi iyo cabsi badan iyo argagax uu dareemayo ayaa habeenkii koowaad sidaas ayay uga gudbeen. Wuxuu is yiri kolley berri iyo wax walba okay ayay noqonayaan. Maalinkii labaad ayuu haddana sidoo kale gabadhu markuu u soo dhawowba indhaheeda ayuu wuxuu ka arkayaa ruucbi iyo argagax iyo baqdin badan. Maalinkii labaadna sidaas ayuu uga gudbay. Waxaa caadada carabta ka mid ahayd ninku markuu habeenkaas ugu horeysa uu gabadha loo keeno reerka gabadha dhalay inay yimaadaan si ay u ogaadaan gabadhooda inay ahayd gabar oo sharfan inay ahayd iyo in kale. In dharkii habeenkaas gogashii lagu sexday in ay arkaan in gabadhooda ay gabar ahayd iyo in kale inay ku kala ogaadaan. Waxaa guriga soo boqday Isra aabaheed iyo hooyadeed ayagoo arrintaas u socda. Odaygii Isra dhalay ayaa wuxuu la kaftamay wiilkii uu sodoga u ahaa asagoo dhahaya hawshaas u dul maraya. Wiilkii ileen waxba islamaba hayee gabadhiiba dhankeediiba ma uu aadi karee asagoo hoosta u fiirinaya oo arrintii ka gaabsanaya ayuu si arrintii qurux badan ayuu uga gudbay oo odaygii si qurux badan ayuu isku dhaafiyay. Adiga muddo yar kadib markuu 2 wiig sidaas ku jiray xaaladaas oo uusan dhihi karin qofna u sheegi karin uusan dhihi karin dee arrintaas jirta oo uu ka baqayo in dadka tuuladaas degan ay ninkan dhahaan ninkan ninba ma ahanba asagaa wax ka khaldan yihiin iyo waxaas inay ay suuq u galiyaan asagoo ka baqaya ayuu iska aamusay oo jabkiisii iyo dhibkiiba wuu qarsaday. Dhibku iyo wuxuu ka socdana asaga meehe waa gabadhan Isra ah. Muddo yar kadib adiga 2 wiig markii arrintii ka soo wareegatay oo hawshuna sideedii ay tahay ninkan wuxuu galay safar shaqo ayuu wuxuu u baxay magaalo u dhow. Maalinkii uu safarkaas baxay ninkan gabadhana wuxuu u soo diray guriga hooyadeed iyo aabaheed ayuu yiri or iska aad
iyadoo guriga hooyadeed iyo aabaheed joogta. Muddo yar kadib maalinkii labaad waxaa la isweydiiyey ninkii siduu u baxay lama arag, yacni ii sheeg warkiisa iyo akhbaartiisa lama hayo, maxaa dhacay? Waa ninkii arooska ahaayo Isra ninkeedii. Faamilkii ayaa dhan isweydiiyey, gabadhi ayaa la weydiiyey ninkaaga ma ka warhaysaa? Maya bay tiri kama warhayo. Adiga muddo kadib gabadhan yacni ninkii inuu maqan yahay in kalaba yacni walwal iyo murugaba kuma hayso. Adiga wixii guriga aabaheed iyo hooyadeed joogto muddo kasoo wareegato ninkii yacni raqdiisa iyo ruuxiisaba aan lahaynin, ayay maalinkii dambe iyaduna waxayba ku adkaysatayba, aniga waxaan qaadanayaa furiin baan rabaa inaan ninkan iska furo oo yacni warqadeeda furiinka helo maxkamadda tago bayba iyada uga dhigan tahayba. Adigu maalinkii dambe sidii ayay maxkamadda u tagtay, warqadeeda furiinka u qaadatay, waxayna iskala nooleyd guriga aabaheed iyo hooyadeed. Muddo kadib waxaa dhacday in suuqa la soo geliyey Isra ninka ayadaa dishay, ninkii maalinkii uu gurigeeda saa uga tegay yacni oo asagoo nabad qaba kadibna la waayay. Xataa yacni gabadhan ma murugoonin oo murugo lagama arkin, wax ninkii ku dhacay iyo wax yacni iyadoo xataa ka hadlayso ama ka murugaysan ama reaction ka bixinaysana lama arag. Adiga waxbaa suuqa lasla dhex marmaray. Adiga maalin maalmaha ka mid ah iyadoo guriga gabadhiisa ugu joogto odaga baa waxaa dhacday nin weyn oo yacni caruur waaweyn soo dhalayo, reer hore soo marayo, oo laakiin nin asagana maxoogaa maal qabeen oo lacag haysta ayaa aabaheed wuxuu ku yiri gabadhan waxaan rabaa in aan guursado. Aabihii arrintii uu ninkan usoo bandhigay weyn uu leeyahay gabadhaada waxaan rabaa inaan guursado, maba uu diidinba. Aabahana wuu yaqaanay ninkan oo waa nin uu aqoon fiican u leeyaho, yacni nin weyn oo masuul ah. Sidii ayuuna Isra waxaa lagu siiyey ninkii, sidii ayaana ninkii uu ku guursaday Isra. Waa ninkii labaad, ninkii hore lama hayo, sidii ayuu ku maqan yahay oo yacni nolol iyo geeri laguma hayo. Ninkan waa ninkii labaad oo ninka weyn oo aabaheed is yaqaaneen oo sidii lagu siiyo ku guursaday. Ninkanna waxaa dhici doona markii uu guriga loo geeyey oo loo aqal geeyey gabadhii sidii ninkii hore oo kale ayaa ku dhacday, inuu markuu gabadhii u dhawo is yiraahdaba uu arkayo yacni argagax badan uu dareemayo, asagii xataa dhib u soo gaarayo aan loo dhawaan karin. Adiga ninkan muusa qarin arrintii oo wuxuu la wadaagay aabaheed oo wuxuu ku yiri gabadhaada markaan yacni agteeda maraba dhibkaasaan isku arkay, maxaan sameeyaa ayuu yiri oo maxaa khaldan? Odaygii ayaa yiri oo maxaa dhacay? Arrintaas ayaa jirtuu yiri, muddoba arrintaasaa jirtay, gabadhaana ma aqaan wax ka khaldan, kolley wax baa jiruu yiri. Adiga muddo yar kadib waxaa la arkay iyadoo arrintii uu odaygii aabaheed Isra la yaaban yahay oo hooyadeed uu sheegay yiri gabadhaada arrintaasaa yacni laga soo sheegay, oo arrintii ay faamilkii la yaaban yihiin oo ninkii gabadha guursadayna odaygii gabadha guursadayna uu yaaban yahay. Ayaa waxaa dhacday muddo yar kadib, adiga wiig iyo xoogaa, ninkii asagoo jooga ciyaalkiisii iyo gurigiisii reerkiisii kala jooga ayaa waxaa dhacday inuu afgembi hal mar saa ugu dhacay oo uu raftay caruurtiisii uu ku dhex raftay. Adiga ninkii isbitaal baa loola cararay, ambalaas iyo intii loo wacayay iyo muxuu ahaa ii sheeg dad loogu wacayay, ninkii naftii ayaa ka baxday odaygii. Adiga ciyaalkii kale hooyadood gabadhii xaaskii kale uu qabay oo qaylinaysa ayaa dadkii kusoo dhex dhacday oo tiri naagtan oo Isra waa yacni qof waxa weeye wax yacni dadka maxaa la dhahaa qof dadka oo naxsiga ah yacni oo nusqaanta ah oo yacni qof ninkii horena iyada gacanteedu ku dhintay, ninkaygana gacanteeda ayuu ku dhintay ayay leedahay. Adiga arrintii oo magaaladii dhan yacni reerkii Isra aabaheed iyo hooyadeed iyo waa la gooyey, dadkoodii dhan waxaa loo arkay dad yacni ii sheeg gabadhooda yacni gabar qaatilad ah oo yacni nimankii dhan dishay, kii hore iyo kanba. Adiga Isra labadii nin guursaday iyadoo ay saas ku dhinteen muddo kadib oo cidna faamilkii yacni la gooyey oo dadkii qaryada deganaa ama tuulada deganaa ay waxba ku darsan, ayaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah iyadoo bannaan saas kale u taagan meel
ayaa nin maaragtaa magaalada markaa soo galay oo ku cusbaa ayaa gabadha wuxuu ka arkay kor iyadoo maaragtaa suuq iska dhex marayso yacni ii sheeg adeeg suuq u doontay. ninkii gabadhii saasta u fiirshay quruxdeedii uu la dhacay ayuu soo dabagalay ilaa uu gurigooda yimid. Gurigooda markuu arkay cabirtay oo meesha gurigooda ku yaalo arkay ayuu maalin dambe soo noqday. Aabaheed ayuu usoo bandhigay wuxuu yiri gabadhaada yacni waxaan ka rabaa guur oo waan rabaa inaa isiisid baan kaa doonayaa. Odaygii farxad asagoo isdhahaya dee gabadhiisi cidna guur yacni dadkii magaalada deganaa guur wax ka raba ma jiraan. yacni xaafadihii dhan asaga waa la gooyay ayagoo keligooda saas u go'doon u ahoode yani cid wax ku darsatay aysan jirin ayaa ninkan cirka ka soo dhacay oo gabadhan raba. Diyaar ayuu yiri odaygii waa ku siinayaa gabadhayda. Sidii ayaa lagu siiyey intii uu gabadhii u doonanaa oo yani u doonanayd oo yani oo usoo diyaar garoobayay oo hawshii oo uu ninkii ku maqnaa qabanqaabadii yani arooskii gabadha Isra uu aroosi lahaa ayaa ninkii wuxuu haystay magaalada banaankeeda ayuu wuxuu ku haystay ari iyo xoolo badan iyo waxaas uu ku haystay. Marka ri ka mid arigii meesha u joogay ayuu waayay. Wuu raadshay wuu ka samray. Faruhu ka qaada asagoo ridii sidii ku weysan oo meel walba iyo meeluhu isdhihi karay waa ka helaysaa dhan uu ka waayay ayaa laba nin yani u yimaadeen oo ay dhaheen yani rida noocaas ah ma kaa maqan tahay haa annaga waxaan kusoo aragnay meel wuxuu yiri kaalay isoo tuso waxay dhaheen soo bax annaga ku geynayna biri waqtigaas diyaar garow waa ku wadaynaa meeshii baan ku geynaynaa. Ninkii wuxuu ku aaminay nimankan ridii tilmaamaheedii dhan ayay sheegeen. Adigu maalinkii dambe ayay israaceen meeshiisa u sii wadeen ninkii waxay ka tuureen waxay geeyeen labadii nin meel oo yani duurduur ah oo god camal ah oo intaas niman tiradii ka badan oo yani hubeysan ay joogaan. Ninkii wuu baqay oo wuu cabsaday oo wuxuu yiri maxaa dhacay ninkii warba lagama sugin tasaa loo jeebeeyay oo geed lagu xirxiray ayaa waxaa la yiri nin waxaa fadhiya qurux badan oo maaragtay oo meesha yani isheeg kaaba u ah ayaga markaas waxaa lagu yiri uriyaa sababbaad maxaa ugu fiirisay indhahaagu sabab bay u arkeen Isra gabadhan jeclaa. Markaasuu ninkii calaacal war aniga haddaa gabadhii jeceshahay anuu ma ogeyn haddana gabadhii anigu ma guursan oo way ii doonan tahay oo guriga aabaheedii hooyadeed ayay joogtaa waan kuu nabadgelinayaa. Adiga ninkii wuu baqay hadalkii intuu calaacalkii iyo baryadii uu baryayay ninkan u dhahayay ninka war iska kaydaa gabadha waan banaankan ka marmaba haystee xabaddu waaba ku dhacday waaba ku socotayba ninkan. Sidii ayaa waxaa ku dhintay ninkaas dhalinyarada Axmed oo dadkii dhan ay uga digeen tuulada ay dhaheen war gabadhaas gabar waxa weeye ninkii guursada sabab uu dhintaa lamana arko sababta uu dhintana lama oge yani ka joog oo lagala taliyay uu yiraahdo wax idinka galay ma lahan Isra waan jeclaaday waan guursanaya. Marka ninkii sidii ayuu ku dhintay Axmed oo yani ninkii saddexaad ah oo laakiin ninkan saddexaad uu guursaday uu doontay bas laakiin muusa guursan waxaana dilay nimankaas. Adiga waxaa dhacday nin muddo yar kadib nin oo qaylo dhaan wado dhahaya asxaabtiisii ayaa waxay soo wargeliyeen dadkii tuulada waxay dhaheen war ninkii Axmed ahaa 2 maalmood 3 maalmood akhbaar lagama hayo dhimasho iyo geeri iyo nolol toona laguma hayo. Adiga asxaabtii Axmed meel kasta waxay ogeeyeen yani askartii iyo dadkii dhan waxaa loo sheegay in Axmed la weysan yahay oo ninkii Isra soo doontay oo halkaas deganaa in la weysan yahay. Adiga maalinkii ku xigtay waxaa magaalada soo galay nin beeraley ah oo duurka ka yimid oo yani ku haya war waxaan soo arkay nin yani geedkaas lagu daldalay oo meyd ah oo yaala. Adiga dadkii waa ordeen waxaana la soo ogaaday inuu Axmed yahay. Sidaas ayaa dadkii tuulada waxay ogaadeen qofkii saddexaad oo Isra nolosheeda soo galay inuu saa ku dhintay iyadoo Isra iyo faamilkeedii lagu kacay oo dadkii magaalada ay leeyihiin nooga guura magaalada oo meelaha kale la taga yani ii sheeg dhibkiina iyo qaatilnimadiina
adiga muddo yar kadib waxaa dhacday in maaragtay nin magaalada banaankeeda degan oo duurka degan oo xoolo dhaqato ah isagoo qaylinaya inuu yimaaday dadkii kusoo dhexdhacay iyo askartii uu yiri war aniga meeshan waxaan ku arkay buush yacni buul yar oo dhisan oo qariib ah oo waxyaalo iyo codad iyo waxbaan ka maqlaa kaalaya la soo arka adiga dadkii ayaa meeshii tegay si ay usoo arkaan ninku wuxuu sheegayo markii meeshii la tegay waxaa la arkay oo meeshii lasaa loo dumiyey buushkii waxaa loogu tegay wiil yaroo dhalinyaro ah adiga dadkii ayaa askartii ayaa soo xireen oo soo wareysteen wareysi dheer kadib wuxuu yiri wax walba anaa sheegaya yacni xoogaa waxaa la isku dayay in laga hadal siiyo wuxuu yiri wax walba anaa sheegaya oo yacni ka waramaya muxuu ahaa isuga adiga waxaa la yiri sheekadaada iyo qisadaada ka sheekee wuxuu yiri aniga qisadayda horta iga dhageysta qisadaydu waa sida tan aniga maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan kor ka arkay buu yiri gabadha Isra waana jeclaaday ayadana waa u sheegtay jaceylkeygii ayadana way i jeclaatay muddo yar kadib ayaan waxaa ogaaday Isra inay kasoo jeedo qoys muslim ah oo ahli diin ah oo weliba diinta ku adag inay kasoo jeedo anigana aan kasoo jeedo qoys masiixi ah oo sidoo kale masiixinimada ku adag waxaana ogaaday aniga iyo Isra isla ogaanay in maaragta oo yacni garowsanay in yacni aysa marna aan is heli karin Israna jaceylka u qabo wuxuu ahaa mid xad dhaaf ah maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa ogaaday Isra in yacni aabaheed iyo hooyadeed ay siiyeen nin taajira meeshaan ayaan imid 2 sano ka hor ayay ahayd biir qisadeyda meeshaan ayaa imid waxaana yacni Isra meeshaan ayay iigu imaan jirtay oo buushkan ayaa aniga iyo Isra maadaama aan is heli karin oo faamiladeena iyo dadkeena ay iskaaga siin karin oo wax yacni impossible ay tahay in yacni gabar muslina nin masiixiya uu guursado yacni kana fog yacni markaas faamiladeena yacni dhaqan ahaan ayaa waxaan go'aansanay meeshaan inaan maaragtay isku aragno annagoo yacni halkan degan oo yacni halkan iskugu nimaano oo si dhow Malaysia ku wada nool ayaa waxaa dhacday buu yiri in maalin yacni maalmaha ka mid ah maqlay in yacni Isra uu guursaday nin marka sidii ayaan waxaan go'aan ku gaaray buu yiri inaan qof yacni dad saaxiriinata u tago inaan maaragtay aan raadiyo sixir uu nin kasta oo Isra u soo dhawaada uu maaragta uga fogaan karo kadibna waxaan ku heshiinay anigii Isra buu yiri waxaan go'aan ku gaaray oo ku heshiinay in yacni ninka Isra in la dilo marka ninka Isra markuu safarka saa u baxay buu yiri Isra ii soo sheegtay anigana markii ayaan meel jidka ah baanta u galay ayaan dilay sidaas ayaan ninka ku dilay ninkeedii koowaad waxaa la yiri haye ka waran ninkii labaad haddana muddo kadib waxaa maqlay in Isra nin labaad oo aabaheed nin weyn ah uu siiyey sidoo kale ayaan waxaan sameeyay in maaragta ninkaas weyn aan tartiib loo dilo oo sun ayaan waxa ugu dhiibay buu yiri Isra suntaas ayay siin jirtay ilaa uu odaga maalinkii dambe asagoo iska caadiya oo ciyaalkiisa iyo caruurtiisa dadkiisa ku dhex jira inuu ku dhex dhinto waxaa la yiri haye ka waran ninkii dambe oo Axmed oo soo doonay Isra wuxuu yiri sidoo kale ninkaasna aniga ayaa dilay waxaana u dilay yacni inuu maaragta gabadha aan jeclaa uu maaragtay doontay oo yacni uu raadiyay sidaas ayaa ninkaas dhalinyarada ah oo Axmedna aan ku dilay adiga ninkii Isra jeclaa wuxuu qartay dambiyadii dhan Israna inay arintii la ogeyd sidii ayaana maxkamadda maaragta waxaa loogu xukumay dil yacni toogasho ah ninkii Isra jeclaa Israna xabsi daa'in loogu xukumay qisada marka Isra yacni nimankii Isra soo maray wixii dili jiray inaa fahanteen ayaan rajeynayaa asxaabteeda intaa sheekadan sheeko lamida ku kulmayno fi amaanillah wassalaamu calaykum